agaasimaha dalladda dhalinyarada Somaliland ee Sonyo Cabdixamiid Maxamed Cumar ayaa soo dhaweeyay ansixinta xeerka doorashooyinka iyo codbixiyaasha qaranka ee Somaliland oo ay ansixiyeen golaha wakiilada ee Somaliland. Agaasimuhu waxa uu hoosta ka xariiqay in laga saaray qodobo xanibayay dhalinyarada Somaliland ee raba amaba jecel inay ku biiraan siyaasadda Somaliland. maanta waxay golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland ka doodayeen xeerkii doorashooyinka Jamhuuriyadda Somaliland oo kaabis iyo wax ka bedel lagu sameeyay. xeerkaasi min muddo ah wuxuu yaalay golaha doodihii tiraba 4 jeer 5 jeer oo hore oo laga dooday baanu ka qayb galnay dalladda dhalinyarada Jamhuuriyadda Somaliland ee Sonyo. waxaanu isu keenay oo aanu kulamo duwan laga yeelanay shirgudoonka golaha wakiilada, gudahoosaadka arrimaha gudaha iyo amniga ee golaha wakiilada, xildhibaanada oo aanu mid loo kulannay, madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo la kulannay, gudoomiyaasha garabada dhalinyarada saddexda xisbi qaran oo aanu iyagana la kulanno dadaalkan iyaguna qayb ka ahaa. maanta ayaa gabagabadii xeerka ay golaha wakiiladu gacanta u taageen oo ansixiyeen. waxaan maanta halkan uga sheegayaa dhalinyaradii hanka siyaasadeed lahayd ee Somaliland xeerka qodobadii dabreeyay ee dhalinyarta qodobkii 4-8aad iyo qodobkii 12-8aad labadaba golaha wakiiladu wax ka bedelkiyo kaabista ay ku sameeyeen. waxa kaliya ay isbedelay daadii hore ee loo ogolaa 25 jir inay golaha deegaanka ku soo galaan dhalinyaradu oo laga dhigay 30 jir. intii kale aanu ka doodaynay oo marka hore ay golaha soo dhigeen inuu qofka dhalinyarta ee hanka siyaasadeed leh ee galaya golayaasha deegaanku uu yeesho hantima guurta oo mood iyo noolba leh oo degmada uu iska sharaxaya uu ku leeyahay oo u dhigantay 600 milyan oo Somaliland oo marka la rogo noqonaysa 70,000 ilaa 70,000 oo dollar. tii meesha waa laga saaray gabi ahaanba oo waan ugu bushaareynaa dhalinyarada Somaliland dadaal adagna waanu ka galnay. halka lacagtii deebaajiga ahayd ee darajada degmooyinka ee musharaxiinta dhalinyarada iska soo sharaxayay ay 40 milyan oo ilaa 4,700 ilaa 5,000 inta u dhaxaysa ay ahayd waxa laga dhigay 15 milyan. degmooyinka darajada B halkii ay ka ahayd 10 milyan waxa laga dhigay 7 milyan baa hoos loogu soo dhigay. degmooyinka darajada C 5 milyan baa ahayd oo 4 milyan baa laga dhigay. ugu horeyn Ilaahay baan u mahadnaqaynaa. mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa shirgudoonka golaha wakiilada iyo xildhibaanada sharafta leh sida ay u tixgeliyeen codsiga dhalinyarada uga timiday. codsiga iyaga 90% waa la tixgeliyay marka laga reebo halka daada oo ay keeneen cudurdaar ah qofku markuu ka qalin jabiyo jaamacad 24 jir ilaa 25 jir inuu yeesho 5 sano oo ah khibrad. marka 30 jir buu ku gali karaa doorashada golayaasha deegaanka halku 25 awal kaga gali jiray. aad baan ugu mahadnaqaynaa golaha wakiilada. dhalinyarada hanka siyaasadda lana waxaan leenahay ku soo dhawaada saaxadii dabarkii baa la idinka furay dalkiina iyo dadkiinaba fursad baa la diisay inaad wax u qabataan. Aidarus Maxamed Caynan Goobjoog Hargeysa.